bishii Janaayo sanadkii 1988 Martin Pistros isaga oo 12 jir ah ayuu isku arkay xanuun uusan abidkiis hore u arag dhaqaatiirtana ku cusbaa. Xanuunku wuxuu ku bilowday dhuunta oo aad u xanuunta. Qoyskiisa ayaa durba cusbitaalka si degdeg ah u geeyay. Durba dhaqaatiirta ayaa baaray waxayna markii ugu horeysay ka baareen cudurka TB-da balse waa laga waayay. Dhaqaatiirtii ayaa aad ula yaabtay. Muddo kadib Martin kooma ayuu galay. Balse dhaqaatiirtu kama quusan waxay isku dayeen inay soo ceshaan miyirkiisa. Waxay moodeen xanuunkiisa mid sahlan isla markaana si fudud dib loogu soo celin karo miyirkiisii. Waxay u sheegeen waalidkiisa inuu dib u soo kici doono muddo aan badnayn kadib. Balse sidaas ma ay noqon. Martin ayaa cusbitaal kale loo qaaday. Daawooyin fara badan ayaa loo qoray cisbitaal ayuu u dhiibay. Daawo ayay u dhiibtay. Ugu dambeyntiina dhaqaatiirtii oo dhami waxay isla qaateen in cudurku Martin haya uu yahay mid aysan abid taariikhda aadamaha hore u arag isla markaana uu yahay xanuun dhif ah oo aan aadamaha intooda badan haleelin. Dhaqaatiirtu waxay waalidkayga ku dhaheen waa inaad iska maaweelisaan inta uu dhimanayo ayuu Martin yidhi. Dhaqaatiirtu waxay u sheegeen inuusan 2 sano ka badan noolaan karin oo uu dhimanayo. Martin gurigiisa ayaa ugu dambeyntii loo qaaday isaga oo kooma ku jira isla markaana aan wax miyir ah haba yaraatee qabin. Isaga oo laga quustay isla markaana aysan dhaqaatiirtu ogeyn ama aysan garanayn cudurka haya nooca uu yahay. Labadiisa waalid ayaa waxa ay u qaban jireen wax walba oo qof bini'aadan loo qabto. Way u qaban jireen, dharka ayay ka bedeli jireen, sariirta ayay hadba u rugi jireen. Arrintaas dhibaato ayay u noqotay labadii waalid. Aad ayay runtii u dhibsadeen qof aan dhiman oo aan haddana noolayn. Hooyada Martini ayaa dhowr jeer isku dayday inay isdisho siraca iyo xiriirka haysta wiilkeeda dartiis. Muddo 2 sano ah markii uu kooma ku jiray ayuu si tartiib ah miyirkii ugu soo noqday. Ugu dambeyntiina wuxuu helay dhammaanba miyirkiisii balse arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay Martin ma hadli karin, sunniyaha ma nuuxsan karin, sunniyaha ma uusan nuuxsin karin. Jirkiisa xitaa hal far yaro ma uusan dhaqaajin karin. Xitaa indhahayga kama berigsiin karin ayuu yidhi Martin. Balse miyirkiisa kale si caadi ah ayuu u qabay oo sidii qof caafimaad qaba ayuu ula socday waxa hareerihiisa ka dhacaya. Wuxuu awooday inuu si faseexa u maqlo hadallada ay dadku iskula hadlayaan. Aad ayaan u farxay ayuu yidhi markii ay miyirkayga dib u helay. Waxaan maqli jiray ayuu yidhi dadka oo oranaya kani ma soo toosi doono, miyirna ma yeelan doono. Balse awoodaan ugu jawaabo ma qabin oo xitaa sunniyahayga ma dhaqaajin karin. Xitaa wejigayga xanaaq kama muujin karin marka dadku ay hadalladaas si kaleeto dhahaan. Waxaan gebigayguba ahaa qof naftiisu dabran tahay oo aadamaha kale aan xitaa eegi karin isla markaana aan xitaa sunniyaha u dhaqaajin karin. Marmarka qaar waxaan oran jiray ma waxaa tahay ama shaydaan ilweyn, ma waxaa tahay ghost ama shaydaan ilweyn. Wax kasta oo hareeraha ka socda waan la socdaa balse ma awoodo mana awoodin inaan ka hadlo ama aan ficil ka muujiyo guud ahaanba jirkaygu waa dabran yahay ayuu yidhi Martin. Maalin ayaan maqlay hooyaday oo oranaysa waa inaad dhimataa, dhimo. Waa hooyadiis oo sidaas leh. Martin ayaa waxa uu maqlay hooyadii oo runtii aad u carootay isla markaana ka xanaaqday in wiilkeedu uusan muddo soo kicin isla markaana uu aad u xanuunsan yahay. Markaas ayay hooyadiis oo muruga ka muuqato waxa ay leedahay dhimo, iska dhimo. Aad ayay runtii ii niyad-jabisay balse uma jawaabi karin oo xoog alle ayaa runtii layga haystay. Ugu dambeyntii Martin waxaa loo qaaday meel carruurta lixaad kale lagu xanaaneeyo. Hooyaday ayaa i soo booqan jirtay iyadoo aad u murugoonaysa ayay dhihi jirtay waa inaad dhimato iyadoo u malaynaysa inaanan maqlayn balse aan maqlayo. Buug uu qoray oo ugu wanqalay The Ghost Boy ama wiilkii ruuxaanta ayuu Martin ku leeyahay. Ma aragtay weligaa filin uu qof dhintay oo isla markiiba uu soo kaco isaga oo yaaban sababta uu u dhintay. Sidaas oo kale ayaan dareemay. Waxaan dareemay inaan dhintay haddana waxaan goor walba u jeedaa dadkaygii oo i hareer tuban. Si walba oo aan isugu dayo inaan u qayliyo, si walba oo aan isugu dayo inaan gacmaha u taago, waxba ma karayo oo sanam taagan ayaan noqday.
dhaqaajinta gacmahaygu waa ka baxsan tahay awoodayda. Hadalkayga waxaad moodaa in silent la geliyey. Sunniyahayga waxaad moodaa in qoryo lagu kala xiray. Jirkayga waxaad moodaa in ruux kale ay ku jirto oo aan anigu haba yaraatee waxba ahayn. Bal qiyaas daawada adiga oo miyir qaba balse aan isdhaqaajin karin, dadkana aan la hadli karin oo xitaa aan sunniyahaaga dhaqaajin karin. Martiin wuxuu leeyahay sanado badan ayaan sidaas ku jiray. Waxaan niyadda gashtay inaan sidaas ku dhiman doono. Marmarka qaar waxaan is dhahaa ayuu yidhi, yaa nafta ku dhaafsiiya, yaa koomo iska kaagisha, maxaa qolkan sanado badan dhex dhigay. Niyadda ayaa ka ooya cadho darteed, cunaha ayaa i xanuuna. Balse nasiib darro cadhadaasi ma dhaafsiisana jirkayga, yacni dadka kale lama wadaagi karo, mana soo gudbin karo cadhada maadaama aan hadli karin amaba aan nuuxsan karin. Kalkaalisooyinka ayaa ii soo gala iyaga oo igu leh erayo qalbigayga dhaawaca sida dameer, ey, iyo mararka qaar ay igu dhihi jireen jinni ayaa tahay. Muddo 10 sano ah dadkii daryeeli jiray waa ay dhibaateeyeen, waa ay caayi jireen, halka qaybtoodna ay jir ahaan dhibaato ii geysan jireen, iyagoo u malaynaya inaanan waxba dareemayn ama aan waxba maqlayn. Waan wareeray, waan argagaxay, maxaan sameeyo waxaan laygu samaynayaa, maxaan ka hadlayay dadkaas. Qayb nafteeda ka mid ah ayaa rabta inay oydo, halka qaybta kaleetana ay doonayso inay iska celiso dadkaas oo dagaal la gasho, balse dagaal ma awoodo oo xitaa faryaradayda ma dhaqaajin karo. Wuxuu sidaas ku jiro markii uu gaaray da'da 25 sano. Waa markii uu u buuxsantay 12 sano oo buuxa oo ku jira koomo. Ayuu wuxuu dareemay inuu jirkiisa dhaqaajin karo. Intaas waxaa xigay inuu hadallada qaar kari karo oo dhihi karo kuna dhawaaqi karo isaga oo caawinaad ka helaya dhakhaatiirtiisa. Intaasi kadib waxaa loo wareejiyay xarunta dadka aan sida caadiga ahayn u hadli kara, balse u baahan qalab ay ku hadlaan. Waa xarunta dadka aan sida caadiga u hadli karin balse u baahan qalabka ay ku hadlaan ama kombiyuutaraadka ay ku hadlaan. Halkaasi ayaa la geeyey Martiin. Sanadkii 2001 ayuu bilaabay inuu hadlo, wuxuuna hadli jiray isaga oo isticmaalaya kombiyuutar. 2008 ayuu la kulmay gabadha uu guursan lahaa, wuxuuna u haajiray waddanka UK. 2009 ayuu guursaday, halka 2010kiina wuxuu bilaabay ganacsi uu isagu gaar u leeyahay, taasi oo runtii noqotay ganacsi aad u guuleysta. Martiin inkastoo uu hadli karo isla markaana uu wax qori karo amaba uu ku hadli karo kombiyuutarka, haddana ma awoodo inuu socdo. Wuxuu ku socdaa gaariyoolka loogu talagalay dadka curyaanka ah ee lixaad kala. Sidoo kaleeto ma awoodo inuu si toos ah u hadlo isagoo aan isticmaalaynin kombiyuutar. Wuxuu qoray buug caan ah oo loogu magac daray The Ghost Boy ama wiilkii ruuxaanta ahaa, kaasi oo noqday buug saameyn weyn yeesha, isla markaana ay dad fara badani gataan. Martiin hadda wuxuu ku leeyahay waddanka UK, waana nin fagaare ka hadla, isla markaana waxa uu ka hadlaa fagaarooyin kala gedisan, waxaana uu leeyahay hibo qoraal ama ability uu wax ku qoro. Intaas ayaanu saaxiibayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan uga hadlaynay ninkii 12 sano ku jiray koomada, ugu dambeyntiina ka soo kacay isaga oo caadi ah, isla markaana aan hadli karin, socon karin, balse awooda inuu si caadi ah u noolaado. Intaan mid lamida ku kulmeyno, waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe saartaan, isla markaana like ku qabataan haddii aad ka heshaan. Salaamullah.